ilaahay baa mahad iskale maanta oo taariikhda tahay 25 bishii tobnaad 2020 halkan waxaan ku qabanay shir jaraa'id shir jaraa'id baa ka horeeyay oo la geliyay saxaafadda ama caalamka iyo Soomaali weyn loo sheegay ayna ka qayb galeen beela hadda aan fadhinin oo kamid ah beelaha sida ama Mareexan ayagana sida cawashadooda iyo tabashadooda u muujiyaan baa ka horeeyay shirkan marka shirkiibu daba socda waxaan rabaa horta marka hore inaan ilaahay u mahadnaqo marka labaad aan u mahad celiyo maamulka Jubbaland iyo maamulka degmada Ceelwaaq iyo guddigii la qabtay oo shaqaaqadii ka dhacday gobolka Gedo qaasatan degmada Ceelwaaq iyo hareeraheeda iyo tuulooyinkeeda ciidamada Kenya ay si qalad u qaateen niman maxay ahayd shacab ah oo xoolahoodii iyo guryahoodii jooga inta ku dhimatay Allah u naxariista inta kale waxa la soo daayay 3 qof waa u mahad celinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay inta dhimatay Allah u naxariista inta dhaawacan Allah u boogadhaya waxaan rabnaa marka in barnaamijkaas hore loo sii wado oo la soo daayo 4 nin baa dhiman 4taasna waxaan rajaynaynaa ama aan ka codsanaynaa maamulka Jubbaland iyo dawladda Kenya inay dadkaas masaakiinta si xurnimo ah u soo daayaan oo ilmahoodii iyo ciidahoodii iyo reerahoodii ugu soo celiyaan inta kadib cabashada rag odayaal baa iga horeeyay oo ka hadlay waxyaabaha la taboonaya maxaa la taboonaya maxaa dadkan ka keenay inay hadlaan maxaa ku kalifay inay telefishinada soo istaagaan waxaa ku kalifay Soomaaliya markay dawladda dhex burburtay waxaa xal la mooday waxay Soomaaliya ku burburtay 2000 baa waxaa shir lagu qabtay magaalada Jabuuti dalka Jabuuti magaalada Carta wixii Soomaali dumiyay oo qabiilka ahaa kii asaga baadana xal loo malay kiiba waxa lagu soo dhisay dawlad waxa lagu soo heshiyay cid madaxweynaha qaadata inaysan ka hadli karin qabiilka qaata ra'iisul wasaare cid heshana inaysan golaha wasiirada oo muhiimka aysan ka hadli karin afayeenka baarlamaanka ay u soo istaagi karin waxaad ogtihiin dawlad baa la soo dhisay 4.5 ah yaysan shaqaynin haday doonto laakiin waxay noqotay bilawgii iyo isu keenidii dawladnimadii Soomaaliya kadib markay 2091 burburtay dawladda dhexe oo Soomaaliya arintaas markii la isu keenay 4.5 kaas lagu soo dhisay waxa ku xigtay dawladda Cabdullaahi Yuusuf haddana waxa soo baxay Cabdullaahi Yuusuf waad ogtihiin ra'iisul wasaaraha cid qaadatay afayeenka baarlamaanka cid qaadatayna waa la ogyahay waa la dhisay dawladdaas ayada oo la dhisay oo Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha ka ahaa Ali Maxamed Geedina ra'iisul wasaaraha ka ahaa beelahan hadda halkan ka cabanaya waxay ku lahaayeen hal wasiir iyo hal wasiiru dawladdeed meesha waa ka baxday Sheekh Shariif baa soo galay waxa laga helay wasiir iyo wasiir dawlad kale wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlad laga helay dawladda ay ahayd waa la isqabsaday waa istaagtay waxa soo galay madaxweynaha hadda talada dalka haya Maxamed Cabdullaahi baa soo galay Xasan Sheekh baa soo galay waxa ra'iisul wasaare noqday Saacid baa ra'iisul wasaare noqday waxaan noqday ra'iisul wasaare waxaan rabaa meel baan ka booday waxaan noqday dawladdii Sheekh Shariif ra'iisul wasaare dawladdii labaad oo la dhisay golaha wasiirada waxa ra'iisul wasaare noqday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii loogu dhawaaqay oo Prime Ministerka loogu dhawaaqay waxa uu tagay waxgaradkii siyaasiyiintii dhaqankii baa u tagay beelahan wuxuu ballan qaaday waxa la yiri saaxib soo dhagow waa ku hambalyeynayna inaad qabato xaq baad u leedahay adiga iyo magaceena iyo guud ahaan beesha waa ku soo dhaweynaynaa garabna waa ku nahay laakiin 4.5 wuxuu soconaa ilaa hoos buu u degayaa kursigii koobaad haday helinkii labaad baad ku soo baxday meeshaas waxaa degay oo beesha sida ama Mareexan u degay xataa la degay golihii wasiirada waxaa la helaa hal wasiir ku xigeen iyo hal wasiir dawlad ama laba wasiir dawlad ama hal wasiir wuxuu yiri waayahay waa dadaalaya
insha Allah waana idan siinaya kolihii buu dhisay ninkii dad ugu xigay abtirka yuu ka dhigay waa lagu noqday war maxaad u yeeshay oo adinkii qoladaas yaa badan uu yiri yaa miisaan badan adinkii reebel ana hadda reebel halkaan ka sheega ama hebel baa laga dhigay aan dhaha waxa ma taraysa laakiin waxa la rabaa qofka inuu wuxuu yahay la sheego wuxuu yiri adinkii reebel yaa badan waa la yaabay waa laga tagay ilaahay amarkiis qalladiisi wax dulun lagu dhisay ma daahaane markiiba ninkii dawladdiisa cod baa loo qaaday kalsooniya waa dhacay waxaa la keenay ninka la yiraahdo Umar Cabdirashiid baa la keenay waxaa la keenay Umar Cabdirashiid kaas Cabdiwali gaas baa la keenay afwan raaligaad Cabdiwali gaas baa la keenay waa lala hadlay waa lala fariistay wixii uu ballan qaaday waa laga helay wixii uu ballan qaaday waa laga helay waxa laga helay hal wasiir ku xigeen iyo agaasimayaal iyo xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka agaasimayaal iyo agaasim waaxidyo ka shaqeeya dawladdiida waa dhamaatay waqtigeedii waa dhamaatay waxa soo baxay dawladdii uu madaxweynaha ka noqday Xasan Sheekh Maxamuud markuu qabtay xilka wuxuu magacaabay Saacid waa lala fariistay haddana intii shalay lagu yiri ina adeerkii ama walaalkii ama adeerkii amaantana lagu yiri wuu aqbalay wuxuu yiri insha Allah maba ka soo wareegin golihii wasiirada la dhisay isla beeshii uu siiyay farmaajo waa haddana nin kale ka sii oo gabar walaashiis nin qaba waliba yuu magacaabay war maxaa kugu dhacay raali ahaada way socon wayday shayga dulunka lagu dhisa inaysan daahaynin oo waxba ka soconaynin baan rabnaa dadka inaan toosno way socon wayday codka loo qaaday meeshuu ka baxay waxa soo bedelay Cabdiwali Sheekh Axmed oo ina adeerkii ah laakiin u dhashay gobolka kala yaqaanana Soomaali say wax isu siisa ama beesha gobolka say wax u kala qaadata isay wax u kala leedahay ku dhasho ku soo koro oo waliba aabihii u ahaa nin qaali ah oo dadka iyo deegaanka baar dheer kala yaqaan okay waa lala fariistay waxa la yiraahdaa Cabdiwali Sheekh Axmed waa ku soo dhaweyneena waa ilaahay maadii maanta nin gobolka gedo u dhashay inuu ra'iisul wasaare noqdo waa soo dhaweyneena waana ku hambalyeynaa hadii la soco xibinta waayahay isla wuxuu ka dhigay asagina nin kale oo isla beeshi hore ah yuu asana ka dhigo in adeerkii ah dhamaatay iidan halkaas laga soo waday waxa ku xigtay Umar Cabdirashiid baa la keenay Xasan Sheekh Maxamuud dib wuxuu u magacaabay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u magacaabay Umar Cabdirashiid waa la kulmay waa la fariistay waana laga helay wixii laga rabay qofka Soomaali waxay tiraahdaa bidana xurmaad dhereg baa deeqda bilisna xurmaad deeqda qofka hadaa inta la hadasho wixii uu ku ballan qaaday wax ka yar baxa ku siiyo oo ku xuso waxa cad qofkaas qof xurnimo ku haya waxna inaad leedahay og adkaadana yaqaan waa laga soo gudbay waxa dhalatay dawladda haduu madaxweynaha ka noqday maxaa Cabdullaahi Farmaajo waan soo gaabinaya waqtiga gaaban waan soo gaabinaya waa la fariistay 720 qof oo rag iyo dumar isku jiro oo odayaasha maanta meeshaan fadhiya ay kamid yihiin baa la fariistay oo laba xildhibaan ku jiraan tii hore mahmahdii hore oo reebel yaa badan waa loo sheegay wuxuu yiri ilma adeer raali ahaada arintaas waan ka noqday hadda Soomaha dhagtiina ha taagnaata wiilka waxaad ii dhiibtaan 3 qof oo kaarsiya oo la tashado waxa loo dhiibay oo lagu wareejiyay labada xildhibaan oo dawladda dhaxabaashan ku mataleysay beelahan iyo nin ganacsada ah 3 bari kadib xildhibaanadii xildhibaan ay wateen kii kale kaarkiisii waa la bedelay banaanka gacanta lagu saaray tashi lala yeeshay iyo gogol looga yeeray wax la weydiiyay iska daa asna halkaas oo ku haray waad ogtihiin dawladdaas maanta la dhisay ilaa maanta hal agaasimo waaxeeda oo beelaha Xasan Gaashireedla oo ku leedahay dawladdaas 4 sano ay u dhamaanayso bilooyinka ka hartay ma jirto
waa wax la yaab leh waxaan rabnaa Soomaalida inay maanta fahanto maqasho aragto ma jirto balse iska daay taliyayaasha ciidamada oo furimaha jiri kuwa shabeellada dhexe joogay iyo shabeellada hoose iyo jubbada hoose iyo gado yaa dhamaan la soo xaray iska badaa wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo agaasime dhamaantood waa buul maalinta uu xilka qabtay bil kadib hadda waxay joogaan filla baashi wasaaradda gaashaandhig hebel iyo hebel iyo hebel inaan dhahan hadda waxba ma taraysa laakiin asagana waa og yahay dadka la taliyana waa og yihiin taa intaasaan kaga cabanayna arrinna qabata ma aha arrin noo qalata ma aha arrin nala eg ma aha arrin dhalashada iyo wada jirka iyo isla socodka iyo wax isla cunka iyo wada shaqaynta iyo isu hambaynta iyo isku tiirsanaanta ku shaqaynaysa ma aha arrintaas ninka hadda maanta madaxweynaha ah yaa toos u sameeyay kuwa kalena way ka daba qaadeen oo asaga ka horeeytiisu bay ku dardaarmeen way isu dardaarmeen waxyaabaha la yaab kale waxa weeye oo dhacay oo ninkan doorashadiisii xilka markuu qabtay soo baxay waxaa loo dhiibay 5 dawlad goboleed oo Soomaaliya oo dhisan oo madaxweynayaal leh oo madaxweyne ku xigeenna leh oo baarlamaan leh yaa gacanta laga geli adduunka weynahana uu aqoonsan yahay waad ogeedeen wixii laga helay Somaliland iska badaa marka hore anaga banaanka inaga jirtay naftirkeed qalqal baa galay oo 30 sano dawlad baan nahay leh waa madax banaan leh qalqal baa galay waxay qarka u fuushinay isku dhufad Puntland wixii ka dhacay waad ogtihiin galmudug wixii ka dhacay waad ogtihiin Hirshabeelle wixii ka dhacay halkii baasha la yiraahdo koonfur galbeed wixii ka dhacay waad ogtihiin dhismaheedii wixii ka dhacay waad ogtihiin Soomaali way ogtahay markii la weydiiyo ergeygii qaramada midoobay u fadhiyay uu ka hadlay oo yiri war waxaan sax ma ahana dalka ka baxbaa leeyahay 24 saac nin kasta oo Soomaali oo ka hadlay ma jiro waxaad ogtihiin sargaal sare oo muwaadin ah oo Soomaali ah oo dadka u soo halgamay dalkan iyo dadkana hergal cad in la dhiibay oo diyaarad laga saaray magaalada Muqdisho baydhabo lagu wareejiyay aw shantii Soomaaliya loo tuuray aw dhawaan dabagaalihii Soomaali u baxay shanta qaaradood wixii ka dhacay alalaas aaw maanta maxaa la hayaa ma 5 dawlad goboleed baa dhisan ma waxa baa jira wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ayagoo socda oo meel fiican maraya iyo xukunka qabtay xagee ku dambeysay aaway Soomaali waxaan rabaa maanta inay baraarugto ninka mu'minka ah 2 jeer god laga maqaniin Soomaali shalay bay qaldantay 2017 bay qaldantay waxaan rabnaa 2021 inay qaldamay masiirkeeda iyo midnimadeeda iyo wada jirkeeda qof u qalma isku hayn kara nabadoona inaysan u dhiibina nin digaal ooga ah oo meeshii la aado 4 kumaandoos 500 afduuban ku daadinaya inaysan Soomaali dooran waxaan ku soo gaabinayaa gobolka Gada sida odayaashii iga horeeyeen 2011 baa nimanka hadda la dagaalamaya yaa laga saaray 7 degmo oo gobolka Gada ah waa xor degmo ay dawlad tagi karin ama dawlad dhexe tagi karin ama dawlad federaal ay tagi karin ama dawlad goboleed u tagi karin ma jiro ciidan baa lagu daadiyay habeenimada maxaa loogu daadinayaa waxa la yiri xuduudahan qabanayna xuduudaha Soomaaliya ma dawlad iyo balad xawaa waxa la yiri ciyaarta day waxba ku jirin maxaa loo tumaa habeenkii Soomaaliya oo dhan baa dawladda dhexe ka maqanay kuwa dekadalaha ka maqanay kuwa aeroboorro laha ka maqanay gobolkan maskiinka ah oo dadkiisa 31 sano kacaanka ahaana ee go'doonka ahaa oo jidka lahayn oo isbitaalka lahayn oo garoonka lahayn go'doonka ahaa 30 sanana u sii darnaa oo Soomaalidu waxay tiraa taxsi isu dhidhiib u dhintay isu dhidhiibki Soomaali ku dhintay maxaa ciidanka loogu daadinaa hal lagu daadiyaa maxaa ka soo baxay maxaa horumar hadda gobolka Gada ku soo kordhay waxa laga raadinayo ciidanka loogu daadinayo waxa ay ahayd doorashada 2021 tobanka xildhibaan oo beeshan inuu doos inuu ku dhaco oo kuwa asaga ama beelaha la sheegaa ka socdo oo laakiin asaga uu qasamaystay ama in beel loo dhaco tiideedna waa dhacdo tobankii gobolka Gada ka soo jeedo waad ogtiin hadda garbaari ee la geeyay waxaan rabnaa marka wixii ka dhaca gobolka Gada oo dulmi ah oo iska horimaad ah
oo wadajirka iyo isla noolaashada beesha dhexdeeda ah wax ka keena inuu mas'uul ka yahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo inta la talisa ama Soomaaliya la talisa ama beeshiisa la talisa inta la talisa ka mas'uul ah waxaan rabaa inaan ku soo gaabiyo Soomaali doorasho galaysa shan state baana ka dhisan state walbana waa u madax bannaan arrimihiisa iyo wadajirkiisa iyo tashigiisa gobolka Gado waa lagu duulay waji kastaba loogu duulay ciidamada la geeyay waa laga gooyay sabab Jubbaland inteeda kale hadee gobol bar la haysta oo dhinaca laga haysta oo dhinaca Jubbaland ka joogta doorasho ma ka dhacaysa heshiis ma ka dhacaya nimankii la dirirayay duurka joogan jawaabteeda waa maya waxaan rabnaa talada iyo wadajirka iyo isu hambaynta in talada lagu soo celiyo dalka oo dadka gacanta ku hay lagu soo celiyo qaasatan Jubbaland loo madax baneeyo gobolkii ay doorashada ku qabsanaysa iyo degmada ay ku qabsanaysa iyo meeshay xal u aragta in loo madax baneeyo dawladda dhexe ay faraha kala baxdo hadda ay kala bixi weyda oo sida hadda ay wado halba habeen ciidan meel lagu daadina ay sii socota adduun weynaha iyo Soomaali weyn waxaan u sheegaynaa wixii ka dhaca oo dhibaato ah inuu ninkaas leeyahay waxaan ku soo gaabanayaa mar kale cod dheer aan ku leeyahay Soomaaliya 2016 aad qaldantay ha qaldamin 2022 wabillahi tawfiiq assalamu alaykum waas xasan yaro insha Allah meeshan oo maanta taariikhdu ay tahay 25 Oktoobar 2000 waxaa shir ku qabsaday beelaha Xasan Gaashireedle oo sheegaya oo Soomaali iyo adduunka u sheegaya cadaawada nimankan aan walaalahanahay oo Farmaajo ka dhashay ay u hayaan ciidan Farmaajo hadda ka hor wuxuu noqday nin ra'iisul wasaare ah markuu noqday xataa dadka ka shaqeynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ciidan Xasan Gaashireedle ahay xafiiska markuu soo galay waa ka ceyri asagana wuxuu yiri qalin aniga aan leeyahay cid Xasan lagu ma qori karo waa tagay asagi waxa yimid nin saacid liiro ilma adeer yihiin kullay asaa ku reebaan u maleynaa wuxuu yiri asagi qalinka aan aniga leeyahay qof Xasan lagu ma qori karo asagi waa tagay Cabdiwali Sheekh Axmed nin la yiraahdaa haddana yimid asagana wuxuu yiri qalin aniga aan leeyahay qof Xasan lagu ma qori karo warkaas markuu cadaawad gaamurti oo dadka ay isu reebaan ay iskala dardaarmaan waayo ninka la yiraahdo Farmaajo waxa haduu madaxweyne noqday markuu noqday dadkii soo dhaweey oo u hambaliyay oo u tagay baan dhaheennay waxaan niri kursiga Soomaali u saray maanta aad ku fadhiistay waxaan rabnaa hadee anagu qabiil jiro oo Soomaali dhigeed baan nahay Xasan Isaaq baan nahay wixii soo baxa anaga iskala ogow maba wayn kartiin buu nagu yiri markii ka bacdi hal waxa soo baxay wasiir ku xigeen wuxuu ku qoray nin jifidiisa ah waa cadaawad gaamurti waa ku noqon mar labaadan ku noqon anagoo 20 iyo dhowr ah wuxuu noo sheegay in uu nagana raali gareynayo waxna uu qabanayo laba safiir aan siiniya company lagu shaqeysto waxaas uu noo akhri muddadii waxa soo baxday haddana safiirkii soo baxay nin in adeerkiisu ku qortay haddana ninkaas marka waxa weey cadaawadaas gaamurti oo intaas leeg uu ummadan Xasan Gaashireedle u hayaa hadda oo dhismihii u dambeeyay waad arkaysaan waxa ka dhacay meesha foolxumada dadkuna waxa weey 4.5 baa wax lagu qaybsadaa 4.5 xuquuqda aan ku leeyahay ama aan Soomaali ku leeyahay nimankaas aan duusay qolo kasta oo Soomaali oo kursiga ku fadhiisatana oo iyaga aan ahayn xuquuqdanadaan ka helnaa wasiir baan ka helnaa wasiir ku xigeenna ka helnaa xuquuqda aan ku leenahay ka helnaa asagana waxa weey macal jifadiisana qalinka anaga aan leenahay ma ku qori karna qof Xasan yaa iyagu aan sidee horta Soomaali waxa uu sheegaynaa ninkaas cadaawada abuuray oo maanta digaal sokay inuu dalka giliyo rabo in Soomaali mar bay ku qaldantay mar damba ayna ku qaldamin waxa kale oo idin sheegaynaa saraakiishi anaga Xasan Gaashireedle aan lahayn dhammaantood waa wada rabosto oo waa la wada fadhiisay hal qof oo shaqay oo Xasan Gaashireedle oo ciidan ee maanta ma jiro lama heli karo waad aragteen gobolka Gado dagaal dhibaato ay ka dhacdo u gal 3,000 oo nin wuxuu gay meesha la yiraahdo Balaxaw xuduud kaligeed ma ku taal dagaal sokay waad aragteen dadku waa barakacay waa la dhamaaday hadda la sii wada dad guryahooda laga baxay baabuurtood iyo hantidood oo la dhacay
haddana wixii buu sii wadaa waxaan Soomaaliya iyo adduunka u sheegaynaa Soomaaliya iyo adduunka waxaan u sheegaynaa farmaajo inaan lagu qaldamin mar dambe dagaal haddii uu waxa hadda uu sii wadana dagaal sokoy oo lagu hoobto uu ka dhici doono gobolka Gada asaga ayaana mas'uuliyadaas qaadan doono wixii hore dhacayna asaga mas'uuliyadeeda iska leh wixii dambe oo aan ka galwinayno hadda sheegaynana asaga yeelan doono anigu marka Soomaali intaasaan u sheegaynaa inaan lagu qaldamin oo mar dambe aan la soo dooran oo Soomaali dhaxdeeda la keenin ninkaas cadaawada iyo kala qaybsanaanta iyo dadka inuu dagaal sokeeyo geli raba inaan mar dambe Soomaali dhaxdeeda la keenin macal jifada uu ka dhashay xataa inaan Soomaali mar dambe dhaxdeeda la keenin intaasaan codsanaynaa waxaan kale u sheegaynaa Soomaaliya hadda doorasho socoto doorashadaas wuxuu ka sameyn doonaa waa waxaan ognahay hadda ay ku taahayeen way doorashadaas hadduu dhib ka yimaado oo dad kursi uu leeyahay in lagu maamulo ay dhacdo waa la isku hoobana adinkan inaad ogaataan Soomaaliyaan rabnaa assalaamu calaykum shirkadaga jaraa'id waa dulmigii madaxweynihii Soomaaliya uu sameeyay Soomaali weyn oo kala waxba kama tabanayno shanta Soomaaliyeed waxba kama tabanayno madaxweynihii Soomaaliya loo doortay ayaa dulmi nagu sameeyay xaqi annaga aan lahayn oo adduunkan aan u soo baxnay aan ku lahaynay oo Soomaali ku dhaxlahaynay oo afartii dhibacdaha aan ku lahayn xuquuqdanadii buu na duusiyay wuxuu siiyay xuquuqdanadii cidii asaga aska dhashay dabka asaga aska soo baxay buu siiyay mariixaan waa laga soo sheegay faacay urmidig weeyaalay waa xasan isaaq annaga waxa u kala dhalan xasan isaaq baa u kala dhalan xasan gaashareelana asagana isaaq gaashareel weey xuquuqda xasan gaashareel ay lahayd buu wuxuu siiyay cid yar oo jifa oo asaga ka dhashay buu siiyay hay Soomaali weyn inaan ogeysiino arintaasna wuxuu bilaabay waagi ra'iisul wasaaraha uu noqday asaga ayuu bilaabay cadaawad intaas la eg ayuu sameeyay waxa weeye mar hadduu sameeyay Soomaali weyn kama warqabta bariixaan waxa hoos yaala war uma hayso waxay moodaysaa waxaan loo dhisay inay Soomaali weyn wax reexasan wax ku leeyahay moodaysaa war anagu waa ka qatanay afar dhibac waa ka qatanay ninkaan baa noo diiday waan u dacwoonay waa in qabanaa buu yiri waan u dacwoonay waan idin qabanaa buu yiri waan u dacwoonay ugaaskanagoona la jira yaa intaas oo jeer u tagnay waxa weeye warqadda wuxuu gelinayaa miiskiisa hoostiisa u gelinayaa Soomaali weynay waxaan idin ogeysiinayaa afarta dhibacda Soomaali weyn shanta dawlad waxaan ogeysiinaynaa iyo ummadda islaamka oo dhan inta la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullaahi ta waxaan ogeysiinaynaa ninkaan inuu nagu tunti xaqanaga u diiday oo asaga Soomaali madaxweyne u yahay ilmihiisa iyo cidiisu siiyay cadaalad buu ka fogaaday dadna annaga u xigno birina walaal buu leeyahay walaalnimadii buu gooyay inaad ogaataa marqaati ka noqotaan baa shirkan jiraa'id u qabanay sida uu socdo wixii arintaas ka halaabo haday noqoto gobol iyo haday noqoto beel iyo haday noqoto mariixaan dhaxdiisa iyo haday noqoto sida wixii ka halaaba arinta iyada ku halaaba farmaajo mas'uulka ah cadaaladda ummadda u diiday amaalada cadaaladda beeshiisu inuu sameeyo u diiday wuxuu ka doortay ilmihiisa iyo walaalihiisa inuu xaqooda siiyo xaq dad kale ay leeyihiin Soomaali weynay marqaati ka ahaada arintaas beesha caalamkooyna iidankan marqaati ka ahaada wixii halaabo arrinkaas ku halaaba oo gobolka Gadu ku ismay ka halaaba ama mariixaan dhaxdiisa ka halaaba farxaaja mas'uulka ah salaamu calaykum wa rahmatullah shirka cabashada ka dhanka dawladda federaalka Soomaaliya madaxda u sareysa xukuumadda maanta iskugu nimid ujeedkiisa waxa weeye waxaad ogtahay ma ku sheegaa Soomaaliya waa iska warqabtaa qolo aan kala ka warqabin ma jirto waxa weeye Soomaaliya gobolada ay degto dhan waa wada ilma adeer waa is aftaqaana waa is codtaqaana waa isku diin waa isku tala waa wada xog ogaal weey qolo walba qolada kale dawladda waxay ku leedahay waa iska warqabtaa
inkastoo dadka shacabka oo miyiga ku dhaqan ay hadda maanta xog ogaal yihiin bal magaalo iska daa ay xog ogaal yihiin oo wax maanta la isku moogay ayna jirin waxa jira marka waxaan ogahay ku sheegaa weeye waxaan meesha ka cadaynaynaa dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadda ninka u sareeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo nin iga horeeyay ba u tilmaamay ra'iisul wasaarihiisi wuxuu ka dhaartay qabiilka beelaha la yiraahdo Xasan Gaashireele gabar dhul xaqna hata ugu dhaartay mas'uuliyadka weyn iska daayay waxa ku xigay laba nin oo kale asaga ilma adeer yihiin waa Xiirane iyo Cabdi Saacid ninka la yiraahdo way sidoo kale kaga dhaartay hortay nin baa sheegay asaga hadda madaxweynaha 10 jeer wax ka badan 20 ba ku dhow baan ku leeyahay yaa loogu tagay tala wadaag walaaltinimo iyo mas'uuliyadeed iyo hadii la yiraahdo cabasho oo la leeyahay maxaad ka wadaa oo kaga dhaartay waxaan cadaynaynaa marka dadkaas ayaga qof ahaantooda oo shakhsiyada way ku qaldami karaan oo waa rag siyaasiyiin ah balse ninka ma ka dhashay qabiil iyo dad wax garanaya raggaas ma ka dhasheen dad wax garanaya iyo qabiil iyo wax qadarin kara ama wax miisaami kara maxaa ka wada dhigay soo qaadiya anay ugu santahay ugu qoriya anaa mudan dadka wax la laha aaway qabiilka la dhashay aaway dadka deegaanka ee talada la laha aaway dadka saami qaybsiga la laha aaway hatta kuwan mas'uuliyiinta tay qaldameen kuwa ayaga jifada ku hoo maalin walba wixii soo baxay lagu qoraay urjif hayis ku qoran waa go'aan qabiila waa siyaasad qabiila waa gudoon qabiila waa tala qabiila wax ka gacanta ka qabanaya male wax kala talinaya male waa go'aan ay wada qaateen waa fikir la isla qaba waxa weeye mar haday sidaa tahay waxaan cadaynaynaa cadawad gaamurtay inay meeshaas ka muuqato Soomaali marka inay ogaata oo Soomaali nala ogaata dhibaatadaas ida Soomaali inay nala ogaata baan cadaynaynaa waxaan u sheegaynaa waxaan ay sameynayaan nimanka anaga ma gelinin kuma aanan abuurin Soomaali waa wada xoogaal waa iska warqabtaa anaga nimanka cadaawad uma abuurin dagaal sokeeyay dhibaato ma aanan gelinin haday wax dhaceen wixii dhacay ayaga u sabab lahaayeen way hadayba dhacdo waxay ayaga u sabab lahaayeen way haddana waxa dhici doona waxay ayaga u sabab leeyihiin ba haddana dhici doona waxay ayaga u sabab leeyihiin ba dhici doona waxaan cadaynaynaa wixii hore inay ayaga u sabab ahaayeen waxa ka dambeeyay ayaga u sabab yihiin cadawadaasaan islaamka ogeysiinaynaa dawlad goboleedyada ogeysiinaynaa dawladda federaalka xibnaheeda intaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka ahayn golaha wasiirada ogeysiinaynaa baarlamaanka Soomaaliya ogeysiinaynaa cid kasta oo siyaasadda Soomaaliya danaysan ogeysiinaynaa beesha caalamka ogeysiinaynaa dawladaha dariska ogeysiinaynaa fallaartaas ay galbiyaan waa cadawad dagaal ka dhan ah qabiil baaxad weyn ayaga 3 iyo 4 jeer ku soo laablaamahay saami qaybsiga kaga badan deegaanka kaga badan mudnaanta deegaankana kaga badan cadawadaas idoo muujinayaan waa ka turjumi doonaa waana ka jawaabi doonaa mana ka baryayno qolo barya ayaga oo taabac weeyna manihin laakiin gacalan inta dhowrayna gacaladina waa laga waayay colaadaad abuurteen jawaabteeda waan bixinaynaa haddaan sokeeynimo soo hodiyasho raali gelin iyo waxay haystaan oo ina dhigin banaanka dhigin waxa dhoofay oo dibidaha siyaasadda dawladda ku matala iyo waxa gudaha ku matala qaybka saamiga aan ku leenahay haday si degdeg qabiil ahaan iyo mas'uuliyadan ugu jawaabin waa ka jawaab celin doonana mana qarsanayna waana cadaynayna ciidamada uu geeyay gobolka Gede 15 maxay maalinka la xureeyay oo laga xureeyay cadawada maxay sanadkii 12 baa ahayd marka laga xureeyay cadawada 12 bishii saddexaad 2012 iyo 12 baa laga xureeyay cadawada gobolka Gede ilaa bishii saddexaad ilaa bishii afraad ilaa bishii shanaad ayaa laga xureeyay waxba kuma harin nabad buu ku naaloonay taariikh la qayaanu ku naaloonay nin maamul xuno hal nin shakhsiyaad waxa leeyahay waa iska jiraan ummadaba laga dhaxelaya laakiin gobolka nabad buu ku naaloonay state-ka nabad buu ku naaloonay state-kaas Jubbaland si nidaam yaa ka jiray nabad baa ka jirtay Jubbaland dawladda Soomaaliya oo dhexe ilaa saacadan Kenya Soomaaliya ku soo duushay ma dhicin
Ethiopia Soomaaliya ku soo duushay ma dhicin hadday jiraan arrimo siyaasadeed ay dawladaha wataan yay dawladaha ku soo gali jireen dawlad ku soo duushay oo dalkana ku soo duushay oo Soomaaliya ku soo duushay oo gobolka ku soo duushay ma jirin hal Cabdulrahmaan Farmaajo wuxuu yiri ciidanka gobolka gida keenay waxa ku soo duulaysa Kenya dalka warana kulay diin Kenya lagu soo duushayna qabsatay kulma aragin xabateeda maxaa loo qulqulatay inuu iyada loo maagaya hadday iyada wax laysay waa dawladda may kala xisaabtamaan anaga state baan ahay miyaan la xisaabtami weyne ma state ka la xisaabtami waay maxaa loogu soo gabanaa geedaha beenta waxaa jira arintaas iyada oo nimankaas ay gobolkaas laga wada arrimo siyaasadeed looga golay arrimo uqaasa Farmaajo looga golay dana qabiil baa looga golay dadka danaha qabiilka looga golayayna waa dad jiri jiray oo gaala kula dagaalamay oo islaam kula dagaalamay oo gobolkaas xoreysa una man sheegtay way been sheegay wax isku diilayaan wax shaqayn doonana maaha guriga hooyadooda in ilaada sirta inay gartay maleegayaan waana been aan soo galbarin oo sal iraad midna lahayn xaqiiqadana la isla taaban doona waxa ay ku jiraan hadayna ka bixin annaga qolo xisaabtan baan qolo wax taqaanaan qolo Soomaali baabur sheerik ugu badan lahaan qolo wax garad lahaan qolo wax yaqaanaan war annaga wax xun oo waxay u qaateen waayay sabinkii la soo maray hadii ma Ingiriiska iyo Talyaaniga laga soo baxay dadku u kala qoqobnaa siyaasadda ay cadibneed maamul oo hadal madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre uu soo baxay oo dadka hadaan labada farood afku saarayeen military ku qabsadeen wuxuu yiri waxay u barteen oo bariyaan la way bay baafinayaan war wixii baad ku haminaysaan wixii baad ku haminay ma jiraan waxay yahay hortiin baa laga ilbaxay waxay waa laga guuray ka aragti dheeri ka aqoon badni ka saxaafad badni waxaad ku jirtaan taad wax ka reebi weydaan wallahi gacantaad ka dhunkanaysaan waa wallahi billah ka baxay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadka sharafta leh oo shirki isugu yimid baan salaamayaa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan filayaa kaftan baa iga noqotay inaan waxba la hambeynin odayaashii baa ka hadlay odayaasha hadlaya odayaasha dhaqanka weeye waxay ka hadlayaan cawasho weeye cawasho aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ugaas maxamed ugaas xasan ugaas yarow beesha sada qolada cawanaysa beesha xasan gaashireedle wey waana beesha sada odi beesha sadaan nahay odi beesha sada baan nahay ugaas beesha sadaan nahay beesha sada wixii dhib ku qabta ama Soomaali weyn wixii dhib ku qabta oo dhan dhibka asaga way qabtay way hayaa waxaan u sheegayaa shirka dhibaatada ka jirta gobolka Gedo oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka wada gobolka Gedo waa nasiib dar nin madaxweyne oo baransante oo dadkiisa dalka dhaxdiisa dhibaato ka wada waa nasiib dar aad u weyn weey waan ka xunnahay annagoo dhaqankii ummadda Soomaaliyeed dhibaatadaas gobolka Gedo laga wada aad iyo aad yaan ugu xunnahay gorgor haramacadiya iyo nisanimo la yiraahdo afka duuban yaa lagu daayay gobolka Gedo waxay ugu dan leeyihiin ma aqaan dhibaatada ka dhacdayna waad garanaysaan waa lagu dhintay waa lagu barakacay dhibaatada allaankan bay weli dhibaatada ka taagantay waxaan soo jeedinaynaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa dhibaatadaas jirta inay ummadda Soomaaliyeed dhammaan wada aragto dhammaan inay wada aragto yaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa waa qodobka xiga waxaan u gudbayaa Kenya iyo Soomaaliya dhibka ka dhacay in odayba hadeer ka hadlayay iyo dadweynaha la xiray dadkii u gurmaday dadkii la soo daayay maamulkii ceelwaaq iyo wasiiradii iyo ciidamaha qalabkiisa u gurmaday aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay inta xiranna hadeer la soo daaya inta xiranna la soo daaya
intii xaq laga qabana xaqooda in la siiyo intaasna waan soo jeedinaynaa oodiba horay ugu hadlay dadka ka qayb galay oo gurmadayna aad iyo aad baan ugu mahad celinayna waxaan u gudbahayaa beesha sada dhexdeeda sada waa wada dhashay facyi mariixaan uurmidigii oo isama xasan iyo isaaq wey afarta ammaan reer iyo afarta reer xasan baa la yidhaahdaa reer xasan wixii ka qadiyey xoolihii lalahaa ay ku lahaayeen ummadda soomaaliyeed farmaajo in la weydiiyaa weye soomaali weyn inay weydiisaa weye bannaanka ay ka taagan yihiin way ka qasan yihiin asaga iyo ra'iisul wasaareyaashii hore loo tilmaamahayeyba waa nasiib darro aad u xun weeye waa qabyaaladan geed looga soo gabanin farmaajo wiilashiisii iyo qoyskiisii inuu mataqaanaa wax alla wixii u soo baxay soomaali weyn xaggeeda ka soo baxay oo beeshiisada u soo baxay in qoyskiisa uu siiya isku dhibaadiya wax yaab la weeye waxaan soo jeedinaynaa soomaaliya in la arko dhibaataduu wada maxamed cabdulaahi farmaajo iska wada soomaaliya dhexdeeda annaga keliya ma nihin dadka cawanaya haddeer ciddaan weeye waxa cawanaya laakiin soomaali weyn oo dhan bay dhibaatada ku dhacday waad maqlayseen xawaadla waxa ka yeerayey hirshabeelle waad og tihiin galmudug wixii ka dhacay dhibaatada ka dhacday koonfur galbeed wixii ka dhacay waad og tihiin haddeerna geduu ku wadaa hadda ka horena wuu sameeyey waa ka dhex sameeyey haddeerna wuu ka wadaa doorashaa ka jirta gobolka gedo sida la tilmaamayo xildhibaanadii baa la geeyey dhibka ka yimaada mas-uuliyadeed inuu asaga leeyahay baan adduunka u sheegaynaa yaan soomaaliya u sheegaynaa caalamka oo dhan baan u sheegaynaa waad arkaysaa nimanka afka duuban oo isgeynaya nisa maxay yihiin niso sow ciidamihii qaranka ma aha ciidamihii qaranka soo maaha ciidamihii qaranka weeye wuxuu haddaa la yidhaahda ku haaya gobolka geda ku haaya maa lala dirira cadowga gobollada jooga oo ummadda dhibaataynaya maa lala dirira beeshiis hadaa lala dirirayaa soomaa iyo mariixaan dhexdiisa yaa lala dirirayaa waa nasiib darra ma aha beeshiisada waxaa lala diriraya waxaa lala dirirayaa sidaan runta kolkaan idiin sheeg qoys baa lala dirirayaa qoys baa lala dirirayaa qoyskana waa la ogyahay qoyska waa la ogyahay ummadda waxaan u sheegaynaa soomaaliya farmaajo wuxuu samaynaya in la arko haddii mas-uuliyadda haddeer la raadinayaas haddeer ku soo baxana soomaaliya subaxaas baa isugu dambaynaysa soomaaliya wada joogta oo dal wada degan farmaajo hadduu dib ugu soo noqdo subaxaasaa ugu dambaynaysa waxaan filahayaa ninka korkiisa biyo kama akradaa la yidhaahdaa qabiil ahaan haddii la yidhaahda qoyska xiga baan nahay hadduu nin wanaagsan yahay kor baan u qaadi lahayn saas baan u wadi lahayn laakiin duwaagnimada iyo wuxuu soomaali ku haya yuu annagana dib nooga haya oo hoosta naga ku haya waxaan soo jeedinayaa soomaaliya ha israacdo ninka cadowga ku ehna allaha naga reebo intaasaan soo jeedinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta ay taariikhda tahay ama ay ku beegan tahay 25 Oktoobar 2020 ayaa waxaa shir ku yeeshay beelaha xasan gaashareedle ee jooga Kismaayo shirkaasoo goobjoog ka yahay ugaas maxamed ugaas xasan yarow odayaasha dhaqanka dhalinyarada aqoon-yahanada haweenka ayaa waxaa ka soo baxay falaqayn kadib waxaa ka soo baxay qodobadan halka hoos ku qoran oo ah warmutiyeedka ay beesha soo saartay
waxaan caddaynaynaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku tuntay saami qaybsiga beelaha xasan gaashireedle ay ku leeyihiin dowladda federaalka taas oo khilaafsan nidaamka 4.5 ee soomaaliya wax ku qaybsatay. labo, waxaan caddaynaynaa ra-iisul wasaarayaashii soo maray beesha sade in sidaan si limid ah ugu tunteen saami qaybsigii beelaha xasan gaashireedle taas oo caddayn u ah in ay ka midaysan yihiin ku xadgudubka xuquuqda beelaha xasan gaashireedle ayadoo ay bixin jireen ra-iisul wasaarayaashii madaxweynayaasha soomaaliyeed oo soomaalida kale marka ay qabtaan beeshaan saami qaybsigeeda ka heli jirtay. saddex, waxay beesha halkan ka caddaynaysaa in ay aqbali doonin ku tagrifilka iyo dulmiga saami ay beesha ku leedahay dowladda federaalka soomaaliya. afar, wuxuu madaxweynaha gobolka gedo ku soo kordhiyey dagaal barakac iyo dhibaatooyin badan asagoo ka leh dano siyaasadeed meeshaan ka filaynay midnimo horumar iyo cadaalad. shan, madaxweynaha wuxuu ku soo kordhiyey beesha sade kala qaybin iyo tafaraaruq taas oo ka dhalan karto dagaal sokeeye. lix, waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo ay khusayso arrimaha soomaaliya inay ogaadaan dulmiga uu ku hayo beelaha xasan gaashireedle madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. toddoba, ugu dambeyn ogaaska beesha xasan gaashireedle ogaaska beesha sada ogaas maxamed ogaas xasiiro wuxuu ku baaqayaa shirweyne wada tashi kaas oo ka dhici doona gobolka gedo oo ah beelaha xasan gaashireedle. waa bilaahi tawfiiq.